السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: إن من إجلال الله إكرام ذي الشيبة المسلم وحامل القرآن غير الغالي فيه والجافي عنه وإكرام ذي السلطان المقسط. وحاجر سدح جروب أو أمضى كمذا ورسول كوري صلى الله عليه وآله وسلم اللوينين تيس وحا كمذا إن لكراميه لقدريه la xushmeeyo saddexda gruub ee soo socda. kan ugu horeeya waa qofka ciroolaha ee muslimka, xushmad iyo qadarin ayuu inaga mudan yahay. ka labaadna waa qofka xaamil qur'aanka xambaarsan ee xaafidka ah ee ku dhaqma ee akhriya kaasina waa midka labaad. ka saddexaad waa qofka madaxweynaha dadka muslimiinta u ah oo isaguna caadilka ah ee cadaaladda ka shaqeeya oo dadka cadaalad u sameeya in la ikraamo, la hagaajiyo, la maamuuso buu isaguna inaga mudan yahay. haddaba walaalayaal, waxaan rabaa inaan dhaho waxa maalmaha soo socda martino ah magaalada Seattle, Washington ee wiilkeena Axmed Burhaan oo ah wiilkii ku guuleystay tartankii Qur'aanka Kariimka ee jaa-isadii Dubai ee sanadkan 2018ka number 1 galay oo adduunka muslimiinta oo dhan number 1 u galay. runtii taasina sharaf bay noo tahay haddaan nahay muslimiinta guud ahaan, gaar ahaan Soomaalida, gaar ahaanna jaaliyadda Soomaaliyeed ee ku nool qurbaha, gaar ahaanna wadanka Mareykanka. maxaa jira wadanka Mareykanka ayuu Axmed wax ku bartay. waxaa kale oo la socdo noo imaanaya macallinkii wax soo baray Alqaari Macalin Cabdinaasir oo isaguna runtii aan oran karo macallimiinta Soomaaliyeed ee ugu intaajka badan oo dadka soo saara xufaada waliba aad iyo aad xifdigoodu caaliga u yahay ee jawdada uu leeyahay ayaa isaguna la imaanaya insha Allah taala 23 bisha November oo jumcada soo socota iyo 24 iyo 25 masaajidkeena Abu Bakr Islamic Center of Washington ayaan ku martiqaadaynaa iyaga iyo culimo kale oo imaan doonaba insha Allah taala. waxaan rabaa marka dadweynaha ee reer Seattle, Washington runtii sharaf bay noo tahay inay noo yimaadaan maalinta Sabtida iyo maalmahana si gaar ah ay waliba Qur'aanka u sheegaan wiilku uu ka hadlo Axmed Burhaan, bal siduu Qur'aanka ku xifdiyay, siduu ku itqaaniyay, ku ilaaliyay. macalinka naftiisu qaabka uu Qur'aanka ardaydaas badan u baro iyo qaabka Ilaahay subhanahu wa ta'ala ugu guuleeyay inay dadka wax kala wadaagaan oo ay ka hadlaan. marka masaajidkeena martina u yihiin waa soo dhaweynaynaa maadaama Allah subhanahu wa ta'ala ikraamkiisa ay ku jirto ijlaalintiisa iyo weynayntiisa. annagana waxaan sharaf noo ah inaan karaamayno oo soo dhaweyno. marka waxaan leenahay ku soo dhawaada magaalada Seattle, Washington insha Allah taala. waa idinku faraxsanahay reer Seattle, Washington oo dhanna ha ka faa'iideystaan oo ha ka soo qayb galaan saddexda maalmoodba muxaadaraadka iyo qaybaha socda. waa maasantihiin. wajazaakumullahu khayr wa barakallahu fiikum. assalaamu calaykum wa rahmatullahi wa barakaatuh.